magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Cabdirasaaq waxaan muddo dheer ka shaqeynayay horumarinta dawlad wanaagga dimuqraadiyeynta iyo sidii Soomaaliya ay u soo nooleyn lahayd dawladnimadeedii qarannimadeedii iyo gobonnimadeedii si taas loo helo waxaa lagama maarmaan ah in shacabka Soomaaliyeed ay fursad u helaan inay doortaan ama dooran karaan madaxdooda ku matalaysa heerarka baarlamaanka ee federaalka iyo dawlad goboleedyada iyo madaxweynaha dalkaba doorashooyinkaasna waa inay noqdaan kuwo loo dhan yahay cadaalad ah hufnaan leh muwaadin kasta oo ka qayb qaadan karo lagulana xisaabtami karta cidii ku xadgudubta madaxda ku soo baxda doorashooyinka noocaas waa kuwo helay ama ku shaqeyn doona rabitaanka shacabkooda hogaamin kara dawlad leh kalsooni dawladdaasna waa mid soo celin karta Soomaaliya gobonnimadeedii iyo qarannimadeedii iyo sharaftii dalkeeda iyo dadkeeda dadka Soomaaliyeed waa isku dan waxayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan xoojinta dawladnimadooda inay ka qayb qaataan doorashooyinka noocaas yaa ka hortaagan maxay u suurtagal weeday in 4 sano ee la soo dhaafay ee doorasho dalka qabsoom weydo maxay u suurtoobi weeday in la qaado talaabooyinka 23 talaabo ah ee loo baahan yahay si loo gaaro doorasho dadka dhan ka wada qayb gali karaan oo qof iyo cod ah maxaa loo wada fulin waayay si habsamo leh loogu fulin waayay talaabooyinka ku xusan dastuurkan jawaabtu waxay tahay waxaa sahlanaatay in dad kooban ay soo xulaan ama soo saaraan madaxdii dalkeena ayadoo loo adeegsanayo dhaqaale ay bixiyeen dawladda shisheeye ama dana shisheeye kuwaasoo u adeegi doona danahaas shisheeye waxaa caado inoo noqotay in musharaxiinta la weydiiyo wadankee ku wata miyaan isweydiinay maxay tahay danta ugu jirta danaha shisheeye iyo dawladaha shisheeye inay saameyn ku yeeshaan madaxda Soomaaliyeed inta ayna fursad u helin dadka Soomaaliyeed inay iyagu ay saameyn ku yeeshaan madaxdooda sababtu waxay tahay in haddii marba aysan jirin madax Soomaaliyeed oo lagu dooranayo sumcaddooda aqoontooda khibradooda iyo taariikhdooda shaqo ee ay tixgelinta kaliya noqoto dhaqaale waxaa iyadana lagama maarmaan noqonaysa in madaxdaasu ay daacad u yihiin una shaqeynayaan ciddii u fulinaysa sidii ay dhaqaalahaas ugu soo bixi lahaayeen madaxda sifooyinkaas leh waxay shisheeyuhu u arkaan kuwa u fulin kara danaha ay ka leeyihiin dalkeena danahaasu ha ahaadeen kuwo dhaqaale kuwo istiraatiijiyadeed kuwo siyaasadeed sida codka ay Soomaaliya ku leedahay qaramada midoobay midowga Afrika iyo ururada kale ee caalamka ah halka dhinaca kale ay danta dadka Soomaaliyeed ku jirto inay fursad u helaan madaxda ay iyagu u arkaan inay u yihiin dalka iyo dadka iyo diinta daacad u yihiin ay u arkaan inay yihiin kuwo karti u leh inay fuliyaan ama hormariyaan danta dadka Soomaaliyeed sababaha ugu waaweyn ee u suurtagali laadahay in dadweynaha Soomaaliyeed ay si toos ah doorasho ugu codayaan madaxdooda waxaa lagu soo koobi karaa 3 kow inaysan jirin hay'ado dawli ah oo xoogan oo xakameyn kara xadgudubyada madaxdu sameyn karaan 2 inay sahlanaatay in shacabka Soomaaliyeed si sahlan loo marin habaabin karo oo aysan ka dhiidhiin 3 taasoo ay u dheer tahay in dana shisheeye ay ka faa'iideysan karaan nasiib darro sanadkan 2016 Soomaaliya uma aysan suurto gelin inay hesho doorashada noocaas waxaas ay dhiirigelisay sidii Soomaalidu meel walba ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay uga galgasheen uga dhiidhiyeen markii kiiskii maxkamadda badeeda la hor keenay dhiirigelintaas waxay tahay in haddii Soomaalidu ay isku tagto oo ay ka tashato danteeda oo ay ka qayliyaan inay iyaduna suurtagal tahay
in doorasho dalkeena ka dhacdo si ay u soo baxdo madax u adeegaysa danta dalka iyo dadka. sida kaliya ee aynu ku badbaadin karno mustaqbalka caruurteenna iyo dalkeenna waa inagoo diidna kuwa raba inay nagu iibsadaan dhaqaale. waa mahadsantiin. ma ka heshaa barnaamijyada Dalsoor? ma danaynaysaa in la helo warbaahin Soomaaliyeed xor ah oo u adeegta bulshada? fadlan taageer Dalsoor. waxaad bixisaa $5 ama $10 bishii. deeqdaada sidan aad u bixin kartaa.